بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن يال يمروين ميل يوا جوجتان با سومالي جيبين با waxaan jeclahay inaan barnaamijkan aan halkan ku qaadaan dhib doono aan aragtidiina idin kula wadaago aniga oo tacbiraya aragtidayda shakhsiga ah isla markaasna ka turjumaya shakhsiyadayda waxaan jeclahay inaynu dhamaanteen si ixtiraam leh uga aragti dhiibano qof walba siduu u arko waayo dadku isku aragti maaha qof walba siduu wax u arkaa wax qof la saxan ayaa qof la khaldami kara inagoo marka aan ku xadgudbaynin xuquuqda asaasiga ah ee qof walba oo bini aadamihi leeyahay oo aanan ku xadgudbaynin aragtida kula liidata qofka iska leh inagoo aan ku xadgudbaynin inaynu qofnaba si gaar ah wax uga sheegno ama si gaar ah u cayno walow aanay soo kordhinaynin wax faa'iido aanay soo kordhinaynin in qof la xumeeyo xumaato inuu qof Soomaali ah cugdad iyo niyad xumi uu ka qaado mooyee inagoo dhowrayna qulubaha dadka inaynu bal aragtideena aynu isku weydaarsano waxaan jeclahay inaan ku soo qaato qodob aad muhiim u ah oo maalmahanba isdabayaaciisu iyo saysashadiisu iyo hawshiisu ay wadankeena ka taagneed arrintaas oo ah federal xuquuq waxa aan u arko kala sooc in la yiraahdo Soomaaliya waxa loo sameeyay dastuur federaal ah oo ay dawladaha federaalka ah waa sida loo sheegay waa dawlado goboladii iyo degmooyinkii dalka oo lagu sheegay inay yihiin dawlado ayaa ku midoobaya dastuur federaal ah marka waxa midoobaya dawlado maaha ay dawlad Soomaaliyeed iyo dawlad qaran oo Soomaaliyeed maaha waxa midoobaya dawladaha federaalka tusaale markaynu soo qaadano waxa ololaha ugu horeeya ugu cadcad ku jiray in Soomaaliya ay federaal noqoto dawlad goboleedka Puntland oo runtii dadaal far badan u soo galay meel marintiisana isagu lahaa runtii sida aragtiyana ay ila muuqato haddaba Puntland waxay ahayd gobolada waqooyi bari goboladii la isku oran jiray oo ay gobolka Mudug gobolka Nugaal Sool Sanaag iyo Bari goboladii la isku oran jiray xilligii dawladii kacaankii hanti wadaaga ahaa uu dalka ka jiray magacyadii ay lahaayeen waxay ahaayeen waa Mudug Nugaal Sool Sanaag iyo Bari haddaba goboladaasi waxay samaysteen maamul 1998 loogu magac daray dawlad goboleedka Puntland ujeedadiisuna ay ahayd sidii inta dawlad dhexe oo Soomaaliyeed laga helayo in ummadu gobolkaas ku nool ay ku nabad gasho dadka Soomaaliyeedna ay kaga nabad galaan waa sida ku qeexan hab dhismeedkeeda ama taariikheeda marka ka sheekeynayaan dadka xeeldeerayaasha u ah gobolka waxyaabaha marka hadda ila ajaa'ibta leh waxay tahay ay tusaale markaan soo qaato Puntland maanta waxaad moodaa inay runtii meel marisay oo ay ku guuleysatay mabdii federalismka ah in Soomaaliya inteedii kaleeto ay qaadato oo la isla ogolaado balse su'aashaas weydiinta leh waxay tahay Puntland iyadoo laftigeedu diyaar ma u tahay inay federaal noqoto oo ay gobol walba uu intuu iskiisu maamulo iyadoo ay federaal noqoto sida hadda muuqata waa maya waa tusaale waxa ka go'ay Khaatumo oo runtii hadeer dagaal iyo ismaandhaaf iyo xurguf xoogan ay ka dhaxaysaa haddaba haddii marka Puntland dhexdeedii aanay ogolayn federaal maxay tahay danta ugu jirta in Soomaali weyn federaal laga dhigo kale in la waayo ciidamo qaran oo Soomaaliyeed oo suga amniga xuduudaha qaranka ama amniga xuduudaha dalkeena oo maamul goboleed walba uusan kalsooni ku qabin maamul goboleedka ku xiga ama ay wixii qabaa'il yihiin oo qabaa'ilka gobolka degan aan gobolka ku xiga kalsooni ku qabin sida ay isugu dhaf lahaayeen ciidamo way adkaan doontaa ismaandhaafka hadda u dhaxeeya maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe oo ma dawladda federaalka ah oo hadda Muqdisho ka jirta ayaa maaragtay haddana iyaduna waxay yihiin conflict kale haddaba waxay su'aasheedu tahay ma idin muuqataa
inay Soomaali dan ugu jirto federaal. haddii ay sadani ugu jirto Puntland oo u abaabulan amaba ay u ololeynaysa federalismka maxay ku diiday in federaal la noqdo. runtii waxaan rajaynayaa in halkaas commentiga iyo aragtida aynu ku kala qaadano inagoo isku dhowrayna xuquuqdeena, waayo waxna waa aragti, cadaawad maaha, isxumayn maaha, maaha waxanina waa aayihii qarankeena, waa wax dhammaanteedna ka dhaxeeya, waa waxaynu xaq u leenahay inaynu isweydiino, qof walba uu aragtidiisa ka dhiibto, qof walbaaba uu sida uu arko uu wax u sheego, iyadoo aan la isku caayin, iyadoo aan la isku aflagaadoonin, iyadoo aan xumaata la isu geysanin. taas waxaan jeclahay inaan iyada halkaas kusoo gabagabeeyo. fadlan dhowr xuquuqda qofka walaalka ah si aad loo dhowro xuquuqdaada oo aan conflict u abuurin, isla markaasna aragtiyaha la isu weydaarsado si habsami leh oo walaalnimo, Soomaalinimo iyo kalgacal ay ku dheehan tahay. aad ayaan idin salaamayaa dhammaantiin. waxaan idinkaga tegayaa intaynu dib u kulmi doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. mahadsanidin.